cirka sare waxaa ka jira boqor aan lala tartami karin. Boqor aan ka baqin dabaysha, roobka, ama duufaanadaba. Waa halyey leh maskax xasuus dheer samaysana qorshe adag. Wuxuuna Ilaah u siiyay awood uu ku maamulo hawada sare. Shimbirkan uma noolasan shimbirada kale. Wuxuu u dhaqmaa sida sirdoonka, wuxuuna samaystaa istiraatiijiyad aad u adag. Safarkeena maanta wuxuu daaha ka rogayaa nolosha Dukaha, dabeecadihiisa, caqligiisa, safaradiisa iyo casharada uu bini'aadamka barayo. Shimbirkan ee Soomaalida ay u yaqaaniin Dukaha. Dukuhu wuxuu ku dhashaa meel ka baxsan meelaha caadiga ah sida buuraha dhaadheer, geedaha dhaadheer ama dhagaxyada adag oo cidlada ah. Meeshaas waxay ka ilaalinaysaa ugaarsatada iyo khatarta. Dukaha dheddigga markay rabto inay dhasho, waxay raadsataa meel adag ee xataa shimbiraha kale ay ka baqaan. Dukaha yar ee ilmaha ah markii uu dilaacayo, maskaxdiisa yar waxay bilowdaa inay kaydiso xogta. Wuxuu xusuustaa muuqaalada, codadka iyo dhadhanka cuntooyinka uu cunayo. Xasuustaas ayaa ka caawisa mustaqbalka markii uu noqdo ugaarsade madax bannaan. Markuu xoogaa u koro, hooyadiis waxay bilaabaysaa tababar si uu ugu dul sabeeyo hawada, iyo siduu u raadsan lahaa cuntada, iyo siduu uga fogaan lahaa khataraha asiga soo wajahaya. Dukaha yar wuxuu bartaa in dulqaadku uu ka muhiimsan yahay xoogga kaliya. Dabeecadaha kale oo uu uga duwan yahay shimbiraha kale ayaa waxay tahay: Dukaha ma raaco koox shimbiro ah. Wuxuu doortaa kala joognimada, madax bannaanida iyo meelaha ugu sarreeya ee kaligiis uu ka arki karo dunida kale. Dabeecadiisa ayaa ka dhigtay mid aan cidna ku tiirsanayn. Wuxuu isticmaalaa istiraatiijiyad adag, wuxuuna ugaartiisa ka ilaashadaa meel fog. Wuxuuna qorsheeyaa xagalka weerarka, kadibna si degdeg ah ayuu hoos ugu soo dhacaa. Xawaaraha uu ku soo dhacayana wuxuu gaari karaa in ka badan 150 kiiloomitir saacadiiba. Midda kale oo aad cajiib u ah ayaa waxay tahay: Dukaha ma hilmaamo meel uu ugaarsi ku guuldareystay ama ku guuleystaba. Wuxuu ka faa'iidaystaa khibradaas hore si uu uga fogaado qaladaadkii uu horay u sameeyay. Inkasta oo uu ku nool yahay meelaha buuraha leh, wuxuu mararka qaar u safraa magaalooyin si uu u helo cunto ama biyo. Safaradiisana way qorshaysan yihiin, mana u duulo meel aan horay u aqoon. Shimbirka Dukaha da'diisa waxay gaari kartaa ilaa 60 sano. Hase yeeshee, markii uu 40 sano gaaro wuu duqoobaa. Sidaa darteed wuxuu qaataa 2 arrin oo ah inuu si tartiib ah u dhinto ama inuu update isku sameeyo. Dukaha markii uu gaaro da'da 40 sano, wuxuu go'aansadaa inuu dib isku soo cusboonaysiiyo. Wuxuu iska rafaa baalashiisii hore, wuxuuna jebiyaa ilkihii hore, ayagoo ah kuwo aad u xanuun badan. Taasi kama celinayso inuu helo nolol cusub, wuxuuna sugaa inay u soo baxaan kuwo kale cusub. Habkan update-ka ah ama dib isku soo cusboonaysiinta waxay qaadataa muddo dhowr bilood ah. Hase yeeshee, markii ay dib ugu soo baxaan, wuxuu u dhaqmaa sidii shimbir hadda oo dhasho oo kale. Dukuhu wuxuu dadka barayaa in guusha lagu gaaro dulqaad, qorshe iyo awood. Bye bye.